ugu yaraan 14 ka mid ah saraakiisha ciidamada amniga dowladda Soomaaliya ayaa 24 saac kadib loo xiray weerarkii shalay lagu qaaday xarumaha wasaaradda amniga iyo gudaha ee ku yaala xarunta gurmadka booliska Auto ee magaalada Muqdisho. Tallaabadani ayaa ka dambeysay kulan ay xarunta dowladda hoose ee Muqdisho ku yeesheen guddiga amniga gobolka Banaadir kaasoo ay ka soo qayb galeen wasiirka amniga iyo kusimaha gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna ku xigeenkiisa maamulka iyo maaliyadda iyo taliyaasha heer federaal iyo heer gobol ee ciidamada booliska iyo nabad sugidda dowladda federaalka Soomaaliya. Saraakiishan la xiray oo isugu jiray boolis iyo nabad sugid ayay wararku sheegayaan inay taliyaal ka ahaayeen kontaroolada laga soo galo xaruntii shalayto la weeraray iyo sidoo kale wadooyinka soo gala xaruntaasi sida wadada dabka iyo tan ka timaada degmada Howlwadaag ee gobolka Banaadir. sida wararka caawa soo baxaya ay sheegayaan saraakiisha la xiray waxa la geeyay xarumaha dambi baarista waxaana lagu xiray amar ka soo baxay wasiirka amniga Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow. saraakiishan ayaa waxa si weyn loogu tuhunsan yahay inay fududeeyeen weerarkaasi maadaama dableyda weerarka fulisay ay si nabadgelyo ku galeen xarunta gurmadka booliska iyadoo wadada ay yaalaan bar control oo baaritaano xoog leh ku sameeya gaadiidka. saraakiisha qaar ayaa waxa lagu eedeeyay inay ka gaabiyeen gudashada waajibkooda halka qaar kalena loo haysto inay si toos ah ula shaqeeyeen kooxda weerarka geysatay ayna qaateen lacag laaluusha. waxaa ku jira saraakiisha la xiray kuwa maamuli jiray baraha control ee isgooska Bakaaraha kuwa oo la sheegay in lagala sii dardaarmay gaadiidka ismiidaami. saraakiisha xiran qaarkood waxaa lagu helay cadeemo kadib markii la dhageystay taleefanada ay sida gaarka u isticmaalayeen. weerarkii shalay ayaa inta la xaqiijiyay waxaa ku geeriyootay in ka badan 14 ruux oo ay ku jiraan mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha halka tiro kalena ay ku dhaawacmeen.